daawadayaal markana war goordhow soo dhacay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay go'aankii dowladda Kenya ay sheegtay in Soomaaliya safiirkeeda looga soo eriyay dalka Kenya kadib markii Kenya ay tiri Soomaaliya waxay ku xadgudubtay awoodeena waxay ku xadgudubtay gayigeena gaar ahaan shirki ka dhacay dhawaan dalka UK gaar ahaan magaalada London ee looga hadlayay xalaashka balogyo dhanka shidaalka oo Soomaaliya ay leedahay. haddaba warka ka soo baxay wasaaradda umuraha dibadda dalkeena ayaan rabnaa daawadayaal in idiin soo koobno oo warqadda hortiina ka muuqata oo ka soo baxday wasaaradda umuraha dibadda. warkan ka soo baxay wasaaradda umuraha dibadda dalkana Soomaaliya waxaa lagu sheegay oo lagu yiri waxa ay jawaab u tahay Kenya warkii ay sheegtay oo ku saabsanaa shirki ka dhacay magaalada London ee dalka Kenya February 6 waa 7 February ee Kenya sheegtay in bad ay leedahay Soomaaliya ay xaraashtay intaas aysan waxba ka jirin. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in maababka lagu soo bandhigay halka oo ay Kenya ku tilmaantay sharci darro in ay tahay mid ay Soomaaliya leedahay oo Soomaaliyana marnaba iska tanaasuli doonin go'aankeeda waqtiga dheer ee la xiriiray markasta dhulkeeda in iyadu ay leedahay. waxaa ku jira warbixinta Kenya ay soo saartay sheegasho ah in Kenya badeeda arintaasi ay hadmid dowladda Soomaaliya ay ku gaftay laakiin Soomaaliya waxay ku kalsoon tahay oo ay ka doonaysaa in markasta ay ku taagnaato wadada caalamiga ah oo ah maxkamadda caalamiga ah ee dhanka dambiyada baarta maxkamadda caalamiga ah ee International Court of Justice taas oo horeba arintan u haysay. Soomaaliya waxay sheegtay in ay maxkamaddaasi go'aan gaari doonto markasta ay xushmay doonto sidaa darteedna Kenya ay ugu baaqayso in iska ilaaliso wax kasta oo muuqanaya go'aan hal dhinaca. warbixintan ka soo baxday wasaaradda umuraha dibadda dalkana Soomaaliya waxaa lagu yiri Soomaaliya wuxuu waajib ka saaran yahay inay ilaaliso midnimadeeda madax banaanideeda siyaasadeed iyo tandhuleed iyo midnimadeeda. waxaa sidoo kale warbixintan wasaaradda umuraha dibadda laga soo saaray sidoo kale lagu yiri dowladda Soomaaliya waxay aad uga xun tahay warkii ay Kenya soo saartay ee la xiriiray in Soomaaliya ay doonayso in dhul aysan lahayn ama blogyo aysan lahayn ay ka iibiso ama dunida ay kula gorgorto taas oo ah mid been ah. Soomaaliya marnaba kama bixin goobaha iyadoo ay xaq u leedahay. Soomaaliya ma doonayso in ay arintaasi bixiso oo ay siiso Kenya waxyaabaha iminka muranka uu ka taagan yahay diyaarna uma aha inay bixiso mana qorsheynayso ayaa lagu yiri wax blog ah oo dowladda Kenya leedahay ama lagu muransan yahay inta maxkamadda caalamiga ah ee dunida ay xukmi doonto bal cidda iska leh biyaha la isku haysto. dowladda Soomaaliya waxa ay diiday wararka la xiriira Kenya warka ka soo yeeray oo ay dowladda Soomaaliya sheegtay in ay diyaar u tahay markastaba inay ilaaliso wax kasta oo caalami ah oo shuruuc ah oo la isku raaco. Soomaaliya waxay sheegtay inay rajo weyn ka qabto in dowladda Kenya aysan go'aan kaligeeda gaarin oo ay ka warsugto go'aanka laba dhinaclaha ah oo ay xushmayso wax kasta oo la isku raaco. ugu dambeyntii dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay go'aankii dowladda Kenya ay ku soo erisay safiirka Soomaaliya sidoo kalena safiirka Kenya ay sheegtay wadankeeda in ay kala soo baxdo Soomaaliya iyadoo aan wax wada tashi ah dowladda federaalk ee Soomaaliya la yeelan. Soomaaliya iyo Kenya waa wadamo dhaqan adag u ka dhaxeeyo iyo xiriir soo jireen oo taariikhi ah mana aha in arrimaha noocan ay saameyn ku yeelato ayaa lagu yiri warbixintan shacabka labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo dad walaalo ah. si kastaba ahaatee dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa ka go'an inay sii wada shaqeynta adag oo ay la leedahay dalka Kenya ee Soomaaliya walaalaha ay yihiin taas oo la doonayo in wax looga qabto laguna xaliyo khilaafyada imika taagan. wasaaradda umuraha dibadda Soomaaliya waxay iskaashiga caalamiga ah waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay dib u soo cusboonaysiiso wada xaajood waa dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in fursad kasta oo xal loogu heli karo arrimahan wax looga qabto oo ay aad u daneynayso in Kenya iyo Soomaaliya ay khilaafkoodu u yaraado. wahagaag daawadayaal warbixintan wasaaradda umuraha dibadda waddanka Soomaaliya ayaa soo saartay oo kaga jawaabaysa go'aanka Kenya balse Soomaaliya kama hadlin arrinta la xiriirta diblomaasiyadda ama xiriirka la jaray inkastoo dowladdu ay tiri taasi waxay ahayd mid aan habooneen laakiin dowladda Soomaaliya ma sheegin tilaabo ay iyadu qaadayso oo la xiriirta jawaabta Kenya la siinayo. waxaa muuqata Soomaaliya in aysan bixin jawaab adag oo dad badan ay sheegayeen in Soomaaliya ay bixi doonto maadaama Kenya jawaabteedu ay ahayd mid aad u adag.